السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام من أمانتينا ميل والبا دودا جوجتان maanta waxay soo bandhigaa warar laga yaabo in aad weliga maqlin qaybta sagaalaad ila daawo. nin la yiraahdo Rune Lynch oo ka shaqeeyo boostada wuxuu arkay mar walba oo boostada geeyo wiil yar ah umaanaya ka dalbanaya waraaqooyinka xayeysiinta. markaas uu weydiiyay maxaa ku sameeysaa, wiilkii wuxuu ugu jawaabay waan akhristaa ii keen. okay ayuu ku dhahay. kadib Facebook ayaa sawirkiisa soo saaray wuxuuna ku soo qoray Matthew wuxuu u baahan yahay buugag uu akhristo, haddaa u soo diri kartiin u soo dira. Matthewna waa magaca wiilka yar. muddo yar kadib intaan buug ayaa loo soo diray wiilkii. adduunka meel walba ayaa loogu soo diray intaas buug. 11 September kadib waxaa soo baxday gabar la yiraahdo Tania waxay soo saartay buug oo qiso oo ka sheekeynaysa qaabka ay ugu badbaaday maalintaas. qisadana waxay ahayd waxyaabo badan oo been ah ay ku dartay. boqolaal qof ayaa gadatay buugaas, boqolaal qofna way akhrisay. intaas oo malyan lacag ah ayay ka heshay buugii. ugu dambeyntii waxaa la soo ogaaday qisadaas oo dhan waa been, waa qiso oo ayada soo aliftay. 11 Septemberna ayada Mareykanka ma buknooleen. Anthony waa nin milyaardeer ah. intuu dhimanin wuxuu qoray dardaarankaas wuxuu ahaa $210 milyan oo lacagtiis ka mid ah ha loo qeybiyo dadka ku nool tuulada uu ku dhashay. Agost 2016 ayuu dhintay. lacagtii dadka ku nool tuuladaas ayaa loo qeybiyay. qof walbana waxaa ku soo aaday $2,600,000. tuuladan waxaa ku noolaa tiro ku dhow 80 qof. Edward waa ninka kaliya oo Yahuud ah oo ka badbaaday Hitler. Edward wuxuu ahaa takhtarka familka Hitler dagaalka koowaad adduunka. markuu Hitler xukunka qabsaday Yahuudi dhan uu ku kacay. qofkaas kaliya ayaa ka badbaaday. labada shirkad Adidas iyo Puma waagi hore waxay ahaayeen hal shirkad oo labo walaalo leh. waxayna furteen 1926 laakiin 1948 labadood khilaaf ayaa dhaxmaray. kadib way kala baxeen, qof walba shirkad kale ayuu samaystay. waxayna u kala bixiyeen Adidas iyo Puma. waagi hore baakada sigaarka waxaa ku qornaa iska ilaali waad ku dhimani. nin ayaa imaaday Kurt la yiraahdo shirkadii sigaarka ayuu dacweeyay. wuxuu dhahay aniga inaa isdila rabay, marka waxaan arkay baakada sigaarka ku qoran iska ilaali waa ku dhimani. intaas lacag ayaa igu baxday sigaarkii mana ku dhimanin. lacagna waan khasaare mana dhimanin. marka lacagtii hadda la isoo celiyo. maxkamadii hadalkiisa uu yeeshay lacagtiis ha loo celiyo Allah. intuu sana sigaar uu cabay ayaa loo xisaabay, lacagteed ayaa loo soo celiyay. maalintaas kadib shirkadda sigaarka way ka bedeshay qoraalka oo baakada sigaarka ugu qoran. waa lagu dhintaa ayaa ku qornaa, laakiin hadda waxaa ku qoran iska ilaali jiro iyo qalbi xanuun iyo waxyaabahaas ayaa kugu dhacayo iyo kansar. booliiska ninkan ayuu raadinayay maalin. sawirkiis ayaa meel walba la soo saaray. ninkii sawirkiisu ayuu arkay wuu xanaaqay. sawirkan uu galay kadib uu diray wuxuu dhahay midkan igu raadiyay. macnaha sawirkii koowaad kama helin, sawir cusub uu galay oo nadiif ah okaalihiisa soo wato. booliisku u diray. dalka Ingiriiska waxaa jiro shirkad la yiraahdo Rent and Warner. shirkadaas hadda aadid waxaa lagu siinaa £50 waxaana lagu diraa meel tacsiye ka jirto. waa tagay meeshaas, tacsiyidaas ayaa soo shiday. macnaha dad jir qaar famil ma lahan, marka waxay rabaan qof oo oohinta ku caawiyo. adaa lagu diraa waa shiday meesha. wiil jaamacadda Eastern Kentucky oo wax ku barto ayaa maalin wuxuu soo kacay dhulkii dhan oo baraf ah. mobilkiisu qabsaday Twitter ayuu wuxuu ku soo qoray maamulaha jaamacadda haddii imaan waayo oo ilbaabka agtiisa barafkan ka qaadi waayo iskool mise jaamacad uma soo socday. maamulihii qoraalkii ayuu arkay, guriga wiilka ayuu soo aaday, barafkii ayuu ka xaaqay. kadib waa la wada wiilka soo baxay, barafka waa kaas waa laga qaaday. intaas ayaa idin soo bandhigay. waxaan rajaynaynaa ka faa'iideen. waxaa idinku codsanaa qof walba ha isoo qoro meesha uu ka daawanayo videoga, Soomaaliya, Yurub, Mareykan, meesha ay ahaataba. commentiga hoos ku soo qor magaalada aad joogtid. hana ilaawin share iyo like iyo subscribe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.